وعن سهيل وحال وري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي كان ملك من بقر أياجر في من كان قبلكم ومضيه لنكه الرئيب كمدها من بقر وكان له ساحر من ساحره لها نكا بقر كاو نكا بقر كاو وحو لها من ساحر أول ووحو شيء أول فلما كبر مركو وينادي وساحر كي مركو وينادي قال للملك بقر كي وحو يري إني أنا قد كبرت وينادي فابعث إلي إيصادر غلاما ويل ير إيصادر وعلمه أن برئ السحر سحر كان كوبر أنو دواه وينادي هنا تنتهى لك يا باي يعني واحد ويكون فعيان إننا ويل ير وكوبر ريبه وانكوبر إيصادر فبعثه صادر إليه حديث غلاما ويل يربو صادر يعلمه إنه سحر كبر دركه وكان في طريقه ويل كده يقول له بكسوك الله يا ساحر كقول لي سوى سوى على كوسوك الله يا markaasuu cashir kaga taxan yahay oo kaasuu wax ka qaataa wey wadadaasuu marka soo maraya wa kaana fii dariiqihi wiilka gulaamka wiilka yare lasoo diray wadadiisa waxaa ahaaday idaa salaka markuu soo maraya saaxirka uu soo jeedo raahibu nin suufi oo mu'mina ayuu wadada ku soo maraya faqacadda ilayhi wuu ag fadhiisanayaa wa samica kalaamahu hadalkiisuu dhegaysanaya markaasuu xoogaa ku dibdhacaya wuu daahaya saacaddii la filayay inuu yani saaxirkan agtiisa xaadiro wuu ka dibdhacaya hadhowna saacaddii guriga laga sugayey labadiiba wuu ka daahaya wa kaana wuxuu ahaaday wiilku idaa ata saaxirka markuu u tago markuu usii socdo u tagayo marra biraahibi suufigaasuu soo maraya waqacadda ilayhi wuu ag fadhiisanaya oo wiilka hadalkiisi uu dhegaysanaya wuu ku daahaya fa idaa ata saaxirkii markuu u tago larabahu wuu garaacaya oo de macallin buu u yahay wuu garaacaya oo xuli xaggeed ku dhigacay saacaddii yani laysku ballamiyey inaad reerka aad ka imaato guriga ka imaato يعني أمريكان ما هي حاجات كي ما توقف قالوا لي فشكا وشيرتي ذلك أرنتاس ويلكي ما شيرتي إلى الراهب سوفيكي بوشيرتي وأرنتاس أيها ستوي فقال وحيري إذا خشيت ساحر كذا كعبسته فقولوا حاسنا حبسني إلي لا لكم الداهر يقولوا أنكو داهر تو يلي بقى داهر كيس كدوي ويقولوا أنكو داهر سيدا دوي وإذا خشيت أهلك كذا كعبسته إلى حاجات أمريكان كي ما تينا فقولوا حاسنا هذا حبسني ساحره intaasoo dhan dartii baan qaadanayo asiga baa la joogi ninkii aan la joogin macallimkaayooda ii dirteen baa la joogi sidaasuu marka ku shaqaysan jiray dhexdana xoogaa sac kale u gashan jiray markaasu ninkaas sii marayo soomaridaba waxbuu kasii qaadan jiray wy fabaynamaa waqti huwa asagu calaa daalika sidaa uu ku sugan yahay id ataa wuxuu u yimid maalinkiisa wuxuu soo maray calaa daabatin daabad buu soo maray cadiimatin weyn qad xabasat innaasa dadka xabaastay wy yani daabad suuradeedoo weynto sida libaaxoo kale u suuraysan baa lakin aada u weyn oo wadadii dadka u fadhiisatay ayuu soo maray dadkii dhammaa wadadii baa laga baqayo xaggaa laga tuurayay wax maraa lalayahay wadadii bay fadhidaa haya faqaala wuxuu yidhi wiilkii yaraa alyawma maantaan aclamu ogaanayaa asaaxiru kan saaxirka afdalu inuu fadli badan yahay amir raahibu suufigu afdalu inuu fadli badan yahay ilahay agtiisa ku khayr badan yahay maantaan kala ogaan doonaa labadan macallime wax ii dhigo midkii khayr badan baan maanta kala ogaan doona sidaasuu yidhi wey fa akhada xajaran dhagax buu qaatay faqaala wuxuu yidhi wiilkii allaahuma allahayow in kaana hadduu yahay amru raahibi suufigaan amarkiisa arrinta uu wada iyo waxa uu ii sheegaya axaba mid la jecel yahay ilayka xaggaaga min amri saaxiri haddii laga jecel yahay faqtul ilaahu dilu haadihi daaba xayawaankaan waddada fadhiista ilaahu dil xataa yumdiya annaasu dadku ha iska socdeen oo ha mareen waddadooda fa ramaahaa dhagixii buu ku tuurayoo faqatalaha wuu ku dilay dhagixii buu ku tuuray dhag buu ka siiyey horuu ka dhintay xayawaanka waa iska dhintay wey wamalla naasu dadkiina way qulquleen oo waddadoodii bay mareen fa ata raahiba suufigii buu u tegey fa akbarahu arrintii buu u sheegay maanta sidaasaa dhacday buu yidhi saasaana sameeyey arrintii saasay noqotay faqaala wuxuu yidhi alraahibu raahibkii baa lahu wiilka wuxuu u yidhi ey bunaya wiilkaygii yaraayo anta adiga yaa alyawma maanta afdalu ka fadli badan minii xaggayga horta maanta adaa iga fadli badan buuri yaqiinta iyo iimaankaagu meesha uu gaaray adaa iga fadli badan buuri qad balaqa wuu gaaray min amrika amarkaagu maa araa waxaan arkayo wa inaka adigu satubtala waa lagu imtixaami doonaa bu ninkaan hadde waa nin yani meeshaanu isaga cilinaysaa waa nin ehlu khayr aho wuxuu ogaan doonaa waxaan hadduu la soo baxo xageed kala timid baa laleeyahy waxaan ma ilaah kalaa jiru leeyahay ummaddaan meesha joogtana boqorkayba caabudaan oo boqorkaa meesha ilaah ka awo ilaah kala maba jiro marka wuxuu yidhi waa lagu imtixaami doonaa faydibtiliita haddii lagu imtixaamo imtixaamida macnaa waxa wey waa lagu ciqaabi doonaa waxaan xageed ka keentay sheeg baa lagu dhihi doonaa
falaa tadulla calaya hay tusin buri dadka hay sheegin hadhow markii lagu imtixaamo hay soo garqaadin oo dadka hay keenin saasuu kula tirdaamay wa kaana algulaamu wiilku wuxuu ahaa yubri'u lakmaha dadka indhaha la abuu bogsiin jiray ruux indhala hadduu yimaado gacanta unbuu marinayaa bas wal abrasa qofka baraska qabo kaasuu bogsiinaya waa u ducaynaya ilaahay baa caafinaya wayudaawi naasa dadku daaweynaya min saa'iri ladwaa yani min jamiici ladwaa cuduryaalkao dhan buu dadka ka daaweeya qofkii u yimaadaba hadduu mar yani kutub ama u duceeyo bas wey fa samica waxaa maqlay wiilkii yaraa ay sidaa samaynayay jaliisun markii hore o dhan maxaa la moodayay sixirka ninkaan uu ka bartay yaa la moodaya waxaan wiilkaan baa ku noqday wax ku kala daberayo waxa uu ninkaan ka bartaa loo malaynayo dhinaca unbaa markii hore loo fahme dhan kaleba looma qaadan fa samica waxaa maqlay jaliisun mid yani la fadhiisan jiray lilmeliki boqorka qoladii la taliyihiisa ahaa yani golihiisa ahaa golaha wasaradiisa kamid ahaa kaasoo kaana ahaaday qad camiya indhabeele nin indhala buu ahaa in hadduu indhabeelaha de ma indho dambuu sugi ma jiro wey marka kaasaa wuxuu maqlay wiil yara waxaa jira ruuxa indhahala oo dhan baa loo tago oo bas indhihii u yani ufayoobaanhayaan fa ataahu wuu u yimid xoolaha halkan aan dhigay oo dhan waxaan aan waday oo idil laka aday kuu sugnaaday adaa iskale waase in anta adigu shafaytani haddaad ishaafiso haddaan caafimaado indhahayga aan wax ku arko oo indhuhu iisoo noqdaan xoolahan aan waday oo dhan adaa iskale qaala wuxuu yidhi gulaamkii wiilkii yaraa innii anigu laa ashfi axadan weligayba ruux anigu ma caafinin buuri inamaa yashfi llahu tacaala ilaahay baa dadka shaafiyo wy hadday kuu sheegayna ku yidhahdeen wiilkaa wax shaafiyo war anigu waxba ma shaafiyo yidhi ilaahay baa wax shaafiyo fain aamanta billahi tacaala ilaahay haddaad rumayso dacawtullaha ilaahay baan kuu baryahayaayo fa shafaaka wuu ku shaafinaya fa aamana billahi tacaala indhaha dee wax lagu doorsan kara ma jire waayo ninkaan wuxuu rabaa inay indhihiisa usoo noqdaan oo dadka u kala arko fa aamana wuu rumeeyey billahi ilaahay buu rumeeyey tacaala korhaayey fa shafaahu llahu tacaala ilaahay baa shaafiyey fa ata almalika boqorkiibuu u tegey fa jalasa ilayhi wuu la fariistay kamaa kaana siduu ahaa yejlisu mid la fariistay fa qaala lahu wuxuu yidhi almaliku boqorkii man radda calayka basarak war aragaaga yaa kuu soo celiyey saasuu ku yidhi qaala wuxuu yidhi ninkii jaliiska ahaa rabbigay baa ii soo celiyey qaala wuxuu yidhi meligii waa boqorkii awalaka rabbun hayrii ma ilaah aan aniga ahayn baad leedahay saasuu ku yidhi wey arrintii waa bilaabatay markaas waaya sir baa baxday somaali waay awalaka rabbun hayrii ma ilaah aniga ahayn baad leedahay qaala wuxuu yidhi rabbii wa rabbuka allah aniga iyo adigabo ilaahay baana abuuray bu oo rabbi noo aanu maamulay saasuu ku yidhi wey fa akhadahu wuu qabtay markiiba haddee wuu yeehay ciidankiisa oo hala qabtuu yidhi falam yazal kama zuulin yucadibhu inuu cadaabayo kama zuulin xataa dalla cala lgulaam waxaan yaa ku tusay intayd ka keentay baa lagu cadaabaya markaasuu yidhi wiilkiibuu si usoo waday wiilkii u keenay xataa dalla cala lgulaam fa ji'a bilgulaami wiilkii baa lasoo qabtay faqaala lahu lmeliku boqorkii baa wuxuu u yidhi ay bunaya wiilkaygiio qad balaqa wuu gaadhay min sixrika sixirkaade waa wiilkii uu meesha geystay soo ma boqorkaaga meesha geeye qad balaqa wuu gaadhay min sixrika sixirkaagu ma tubriu lakmaha dadka indhaha la waxaad ku bogsayso wal abrasa dadka baraska qabo wa tafcalu wax kastaa samaysaa waxaasaa samaysaa waayo nin fiican baaba tahay oo si fiican wax u bartay fa qaala wuxuu yidhi wiilkii innii anigu laa ashfi axadan qofna ma shaafiyo yidhi anigu inamaa yashfi llahu tacaala ilaahay baa yaa wax bogsiiyo wax shaafiyo fa akhadahu wiilkii buu qabtayoo falam yazal kama zuulin yucadibu inuu cadaabayo xataa dalla cala raahib raahibka wuxuu ka yaabaya soo ma waa lagu imtixaami doonaa haytusin bu yidhi soo ma dadkaa ii sheegin waayahay wiilkii markuu adkaysan waaye xataa dalla cala raahib raahibkiibuu u geeyey suufigii fa ji'a biraahibi waa ninka arrintu kasoo bilaabatay asagii baa lasoo qabtay fa qiila lahu waxaa loo yidhi irjic can diinika waxaan aad wadata ka laabo diintaadan isaga laabo ka bax fa abaa wuu diiday fa dacaa wuu u yeedhay boqorkii bilminshaari minshaar buu u yeedhay fa wadaca alminshaaru baa la dejiyey fii marfaqi ra'sihi madaxiisa sheexadiisaa lagu dejiyey madaxa halkaa bartankiisa oo timaha laga kala sheexeeyo ayaa laga saaray minshaartii oo fa shaqahu bihi wuu ku kala jeexay xataa waqaca shiqaahu labadiisii dhinac baa midna xagga ku dhacday midna xagga ku dhacday minshaartaa lagu kala jeexay uma ji'a bijaliisi lmelik kii boqorka la fariisan jiraa haddana la keenay fa qiila lahu waxaa loo yidhi irjic can diinik fa abaa wuu diiday fa wadaca almishaara minshaartii buu dejiyey oo fii marfaqi ra'sihi
madaxa sheexadiisa makaanu sheexadiisu ka saaray fashaqahu bihi wuu ku kala jeexay xataa waqaca shiqahu labadiisii dhinac iyo xag ku kala dhacay. uma ji'a bilgulaami saddexdoodaa unbayba joogteen. uma ji'a bilgulaami wiilkii baa la keenay faqiila lahu waxaa loo yidhi irjic can diinika diintaada ka noq faabaa wuu diiday ma laabanayo. fadafacahu wuu u dhiibay ilaa nafarin buu u dhiibay qolo ayuu u dhiibay oo min asxaabihi ciidankiisa ka mid a. faqaala wuxuu yidhi wiilka yar markaase waa la cabsinayaa inuu dili u diidaya marka xoogaa uu iyo naxariisanayaa. faqaala wuxuu yidhi idhabuu bihi la taga ilaa jabali kada wa kada buurtii buur hebel ahayd oo buuraha ugu dheerayd la taga. fascaduu bihi aljabala la kora buurta la kora. fa idaa balaqtu markaad gaartaan dirwatahu meesha baarkiisa buurta baarkeeda markaad tagtaan fain rajaca can diinihi diintaada ka laaba dhaha. fain rajaca hadduu ka noqdo can diinihi fadaaka de arrintu way wanaagsan tahay soo celiya waa nin fiicane. wa ilaa hadduu diido fadraxuu halkaa ka soo tuura saasuu yidhi. fadahabuu bihi way la tageen bihi qulaamkii bay la tageen fasaciduu way la koreen aljabala buurti. faqaala wuxuu yidhi buurti markii la koray oo dhaladeedii la joogo allahuma kfinihim ilaahu iga kaafiyo bimaa shita waxaa doontay iga kaafi. farajafa bihim ljabalu buurti baa la liliilatoo la lulatay. fasaqaduu kuwii waday way daateen asay keligiisaa meesha kusoo haray. wa jaa'a boqorkiibuu u yimid yamshi asagoo soconayo ila lmaliki. wa jaa'a wuu yimid yamshi asagoo soconayo ila lmalik keligiisa iska socdo boqorkii u yimid. nin la qabtay soo ma carri jirin ma dhuwan jirin wuu soo laabtay boqorkiibuu soo aaday waa u yimid. faqaala lahu lmaliku boqorkii baa wuxuu yidhi maa facala asxaabuka asxaabtaadi maxay sameeyeen aawe markii aan ku dhibay aawe. faqala wuxuu yidhi kafaanihim allahu tacala ilahay baa iga kaafiy ma ogi meel lagu shubay maxaa iga weydin aniga ilahay baa iga kaafiyey buui. fadafacahu ilaa nafarin qolo kale u dhiibo min asxaabihi ka mid. faqaala wuxuu yidhi idhabuu bihi bal haddana la tago qaada faxmaluuhu qaado oo faxmiluuhu ku xumbaara fii qurquurin doonni ku xumbaara doonni. watawasaduu bihi albaxra badda la dhexdhexay doonni yar intaad ku qaadaan badda bartankeeda geeya. fain rajaca can diini hadduu ka laabto fadaaka waa fiican yahay soo celiya. wa ilaa faqdifuu badda ku tuura badda hala tagteen. fadahabuu bihi way la tageen. faqaala wuxuu yidhi badda bartankeedii markii la joogo allahuma kfinihim ilaahu iga kaafiyo bimaa shita waxaa doonta ilaahu iga kaafi. fankafa'at bihim safiinatu doontii baa la dabagadoon intaa ayaga ficilkoodii la gaarin doontii baa isgedisay waa isrogtay. faqaribuu way maanshoodeen kulligood biyihii bay raaceen. wa jaa'a wuu yimi yamshi asagoo soconaya ila lmaliki boqorka asagoo socon waakana daran wiilkii waaba iska lugaynaya. faqaala lahu lmaliku baa wuxuu yidhi maa facala asxaabuka war asxaabtaadi maxay sameeyeen. faqaala wuxuu yidhi kafaanihim allahu tacala ilahay baa iga kaafi. boqorkii waa cajisay marka wuxuu yidhi ninkaan dadkii o dhan soo laayay markaan hadda adiga haddaad isagiina hadda hadduu gacan saaro khatar buuba ku jira marka wuxuu ku taliyuuba garan laayay. faqaala lilmaliki wiilkii baa hadlay marka ninkaan nin naf doonayaba ma ahe noolal kale haddaas waxba kuma sameeyay dadku inay iimaanka qaataan buu rabaa waxba kale ma rabo. faqaala wuxuu u yidhi wiilkii lilmaliki boqorkiibu wuxuu u yidhi inaka adigu lasta matid biqaatili mid idilay ima dili kartid ba aniga haddaa wax kasta samay wax kasta haddaad samayso ima dili kartid xataa tafcala ilaa aad yeesho maa aamuruka bihi waxaan ku amray aniga waxaan ku faray haddaad yeesho unbaad idili kartaa si kale ima dili kartid. qaala wuxuu yidhi maa huwa muxuu yahay waan samaynayaa muxuu yahay. qaala wuxuu yidhi tajmacu naasa dadkaad soo ururinaysaa fii saciidin waaxidin hal banaanahoo weyn dadka isugu keen dadka garoonka magaalada dusheeda ah amarsa ha isugu yimaadeen. wa taslubnii waa isalbinaysaa anigana waxaad igu xidhaysaa calaa jidcin tiir baad igu xidhaysaa. uma khud qaado sahman qaado leed qaado min kinaanati aniga gabooyadayda gabooyada waxaa meesha yani lagu gurto fallaaraha iyo sihaamta bahal lagu rito taasaa la yidhahda. marka hal fallaar kala soo baxo aniga gabooyadayda hal xaba kala soo bax. uma dac dejiyo asahma sahmigii fii kabidi lqawsi qaansada xarigeeda saa u saar. uma qul waxaad tidhahdaa bismi illaahi rabbi lgulaami sidaa bismi illaahi ilaahay magaciisa rabbi lgulaami addoonkaan rabbigiisa ahaa yaan ku ganayaa dhaho sumarmi markaa igu gan. fa innaka adugu idaa facalta daalika haddaad samayso qataltanii waa idilaysa. fajamaca naasa dadkii buu soo ururiyey fii saciidin waaxidin hal banaanuu dadkii isugu keenay. wa salabahu wiilkiina wuu xidhay oo calaa jidcin buu ku xidhay. uma akhada wuu qaatay sahman buu qaatay hal gamuun uu qaatay min kinaanatihi gabooyadiisii buu ka qaatay. uma wadaca sahman gamuunkii buu dejiyey oo fii kabidi lqawsi qaansada beerkeedu ku dejiyey xarigguu saa ugu qabtay wey. uma qaala wuxuu yidhi bismi illaahi rabbi lgulaam. uma ramaahu wuu ku ganay
fawaqaca sahmu leelkii baa ku dhacay fii sunduqihi halkaa fii sudqihi halkaa dhafoorkuu wiilkii kaga dhacay fawadaca yadahu gacantuu saaray fii sudqihi meeshii ay kaga dhacday uu saa gacanta u saartay famaata wiilkii meesha ku dhintay dadkiina kulli waa dhawranayaan waxa lagu ganayna waa maxay bismi illaahi rabbi lgulaam si kale wax waa lagu dili waayo ilaahay magaciisa allihii wiilkaan yani wiilkaan rabbigiisa ah faqaala naasu dadkii waxay yidhaahdeen dee wiilka si kale waa loo dili waaye way ogaayeen yani qisadoo dhan bay ogaayeen marna badda la geeyey marna buurta lala fuulay faqaala naasu dadkii waxay yidhahdeen dhammaan dadkii banaanka tuurna aamanaa birabbi lgulaam dadkii dhammaabaa hal mara ilahay rumeeyey aamanaa waan rumaynay birabbi lgulaami addoonkaa rabbigii baan yaan rumaynay marxaban faata lmaliku fa utiya lmaliku boqorkii baa loo yimid yaa u yimid kuwii la taliyaalkiisa hawey faqiila lahu waxaa loo yidhi ara'ayta bal warran baa layidhi haya qad kunta maa kunta wixii aad ahayd taxdiru mid ka digtoon wixii aad ka cararaysa waa dadka wiilkood inay dadku raacaan bay ahayd qad wallaahi nazala bika xadirku waxa aad ka yaabaysa waa kugu dhacay qad wallaahi nazala bika waa kugu degay xidruka waxaad ka yaabaysa qad aamana naasu dadki way rumeeyeen dhammaan yani wiilkaan iyo ninkii uu kasoo bartay iyo waxay inuu iimaanku faafin soo maaha dadkii dhammaa ee garoonka isugu yimid baa hal mara ilaahay rumeeyey oo wuxuuna hor istaagaya waxay ahayd iimaanka ahayd marka waxaad ka yaabaysa waa kugu dhacay baa li waxaad hadda qabanayso aday ku jirtaa wey fa amara wuu amray bilukduudi buu amray godad hala qodo buu yidhi fii afwaahi sikaki yani wadooyinka afkooda ha laga qodo sikaka waxaa la yidhahdaa jidkaa weyn oo shaaricaho laamiga ah wadooyinkan kasoo laalaabanaya istareedyahan yani sidaa u laabanaya saa u galgalaya ku dhacayo laamiga ku dhacayo yaa sikak la yidhahda wadooyinka xaafadaha ku laalaamo wey marka wadada meel kasoo dhacaysaba afkeeda godweyn oo sidaa jidka weyn ugu soo dhacayo fii afwaahi sikaki wadooyinka yani afkooda ha laga qoday buu yihi godad ha laga qodo fakudad waa la qoday wa udriba waa la huriyey buu yihi fiihaa fiigeeda godadkii anniiraanu dab baa lagu shiray wa qaala wuxuu yidhi dadka ha la soo ururiyo man lam yarjic ninkaan ka noqonin can diini diintiisa ninkaan ka laamanin faqximuuhu ku tuura fiiha ku tuura buu yidhi hala qabto ha lagu rido ow qiila lahu ha loo yidhaahdo iqtaxim ku dhac ku dhac ha la yidhahdo haddaadan ka laabanayni wy fafacaluu way sameeyeen xataa jaa-ad ilaa ay timaato imra'atu naag baa marka dambe ku timid godkii oo la keenay wa macahaa maceedana sabiyun wiil yar bay dhabarka ku wadataa oo lahaa iyada usugnaa dab ka laabaa la yidhi diintaan kama laabanayo tir gal baa la yidhi ku dhac waaye sidaa markay ugu dhaqaaqday fataqaacasat way cabsatay oo an taqaca fiiha inay ku dhacdo gadaal gadaal bay uga istaagtay oo way ka soo yar noqotay oo canugan dhabarka ay ku waday u cabsatay faqaala laha lgulaamu wiilkii ilaahay dhabarkay ku wadaa wuxuu yidhi yaa umma hooyoy isbirii sabr fa innaka cala alxaq xaq baad ku sugan tahay sabr oo gal dabka suurada unbuu daba oga egyahay yani waa janno markay sidaa ugu sii dhacayaanbo jannada unbay gelayaan wy marka ilmihii dharabta ku hadlay buu ka mid ahay ya waayahay waa yani marxaban qutila asxaabu lukduud kuwii ilaahay yidhi buu yidhi qutila asxaabu lukduud godadka kuwii u saaxiibka ahaa wey marka wuxuu yidhi ku dhac hooyey yaa umma isbirii fa innaki cala alxaq baabu sabr baanu ku jirnay yani xaqa ad ku sugan tahay ku sabr buu yidhi imtixaanka yar ku sabr oo galdab